Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabta. Galab wanaagsan, habeen wanaagsan, hadba xilliga aad joogto. Halkan waxaan kuugu soo gudbinayaa 10 nasiixo ku saabsan guusha. Qodobka koowaad ee guusha aan ka hadlayno maanta, go'aanso waxaad rabto noloshaada. Ma garanayo waxaan nolosha rabo, ma garanayo waxaan ku sameeyo noloshayda, ma garanayo waxaan doonayo inaan noqdo, mana garanayo hadafyo aan dejisto nolosha. Hadaladani marar badan maskaxdaada ma ku soo dhacaan oo ma isweydiisaa. Haddii aad hore isku weydiisay saaxiibkayow, keligaa ma aha, waxaa jira kumanaan qof oo aan garanayn waxay nolosha ka rabaan. Sababtuna waxay tahay waxay ku dooqsan yihiin oo aanay si fiican u fahmin waxay baahiyahooda dhabta ah yihiin. Sida loo ogaado waxaad dhab ahaan u rabto nolosha. Haddii aad rabto inaad ogaato waxaad rabto nolosha, weydii su'aalaha naftaada. Ma ku faraxsan tahay noloshaada? Haddii aanad ku faraxsanayn, waa maxay sababaha aanad ugu faraxsanayn? Miyaa tahay qof nolosha hadaf weyn ka leh ama jecel inuu guuleysto? Maxaad doonaysaa inaad noqoto? Maxaad rabtaa inaad ku guuleysato nolosha? Waa maxay waxaad neceb tahay imika nolosha ee jeclaan lahayd inaad beddesho? Ma jiraan waxaad si xun ugu baahan tahay? Markaad ka jawaabto su'aalahan, waxaa kuu soo bixi doona liis ah wax dhab ahaan u rabto iyo waxyaalaha aad doonayso inaad ka fogaato ee aanad rabin. Isticmaal labada liis ee kuu soo baxaba si aad u samayso hadafyo kaa caawinaya inaad gaadho waxaad rabto nolosha iyo waxa aanad doonayn inaad ka fogaato. Tusaale ahaan, haddii aad ogaato inaad ku haysato dhib ahaan dhaqaale xumo iyo lacag la'aan, sidoo kale aad rabto inaad caan noqoto, waxaad jeceshahay laba hadaf oo aad gaadho noloshaada. Waa mid ka mid ah labada hadaf kuwa ugu waaweyn ee lagu soo koobo nolosha. Waxaad go'aansatay inaad ka fogaato faqriga oo aad taajir noqoto. Ka labaadna waa inaad caan noqoto. Qof kasta oo adduunka ku nool waxa uu leeyahay baahiyo aanu gaadhin. Dadka qaar ayaa raba inay ku noolaadaan nolol fiican, qaar ayaa raba inay caan noqdaan, halkan qaarna ka rabaan inay taajir noqdaan. Inaad ogaato hadafyada iyo waxaad rabto noloshu waa mid aad u fudud. Markaad ogaato waxa aanad rabin nolosha ee jeclaan lahayd inaad beddesho, haddii ay kugu adag tahay inaad noloshaada iyo biilkaaga dabarto, waxaa hubaal ah inaad rabto inaad lacag badan hesho oo aad taajir noqoto. Haddii aad neceb tahay xaqiiqada inaad tahay qof xishood badan, waxaad rabtaa waxay tahay inaad kalsoonidaada dhisto. Haddii aad tahay qof badan stress iyo warwar badan, waxaa dhab ahaan inaad rabto ku noolaato nolol bilaa stress ah. Dhab ahaan ma u doonaysaa inaad ogaato waxaad rabto nolosha? Mararka qaar dad badan ayaa yidhaa in aanay garanayn waxay dhab ahaan u rabaan nolosha. Xaqiiqdu tahay inay ku khiyaameeyaan. Walaalkayow ama walaashay, naftaada. Tusaalayaashan soo socda waxay ku tusi doonaan dadka sheegtay in aanay garanayn waxay rabaan nolosha iyagoo ku saleysan sababo kale. Cabsasho. Qodobka koowaad, qofka ka cabsanaya inuu hore u qaado tallaabo horumar ee noloshiisa u la yimaado cudur oo gaar ahaan inuu garanayn wuxuu rabo nolosha. Halka xaqiiqadu tahay in uu iska dayo inuu qariyo xaqiiqada ah inuu cabsanayo. Caajis iyo control la'aan. Waxaa jira dad badan oo sheegta in aanay garanayn waxay rabaan nolosha, halka xaqiiqadu tahay inay boqolkiiba boqol ka warhayaan waxyaabaha ay ku farxi lahaayeen haddii ay heli lahaayeen noloshooda. Xataa dadkaasi waxay bilaabeen inay ku dhaqaaqaan ka dhawaynta hadafyadooda iyo waxay rabaan nolosha, balse markay toddobaad wadaan ay joojiyaan iyadoo ay ugu wacan tahay caajis, nidaam la'aan iyo naftooda ay control ka kari waayeen. Kalsooni la'aan. Dad badan ayaa sheegta cudurro badan iyagoo leh maqaamo nolosha kuwa ugu sarreeya ka mid ah. Imika waad ogaatay waxaad rabto nolosha. Kuma lihi inay noloshu tahay mid fudud oo aad wax kasta ku heli karto isku daygaaga ugu horreeya, ama inaad dhammaan dhibaatooyinkaaga ku dhammayn karto bil iyo 2 bilood gudahood. Balse waxa huba waxay tahay haddii aad si degdeg ah geesinimo ugu dagaalanto guushaada, waxaad rabto noloshaada inaad ugu dambeyn ku guuleysan doonto. Haddii aad dhab ahaan u doonayso inaad hesho waxaad rabto nolosha, u dagaalan, aamin oo riyooyinkaaga suurtagal yihiin. Dadka oo dhammi waxay leeyihiin hadafyo iyo riyooyin, balse in yar oo ka mid ah dadka ayaa cayrsado daba socda hadafyadooda. Sababta ugu weyn ee dad badani u cayrsadeen riyooyinkooda waa iyagoo rumaysnayn inay suurtagal yihiin. Qofka bini'aadamkii waxay maskaxdiisu dhiirigelisaa oo kaliya marka uu rumaysan yahay in dadaalkiisu ay midho dhali doonaan oo uu heli doono. Shaqaynta riyooyinkaagu ay natiijo keeni doonaana iyadoo in kale ay waxay ku dhiiri doonaan ku siin doonaan waxaad doonaysid. Tanna waa sababta ay dadka ugu muhiimka tahay inaad barato sida loo aamino in riyooyinkaagu suurtagal yihiin. Markaad bilowdo inaad aaminto in riyooyinkaagu suurtagal yihiin, waxaad iska arki doontaa adigoo wax meel sare fuushan oo aan si caadi ahayn ugu dhiiri gashan inaad gaadho riyooyinkaaga. Taasina waxay sababi doontaa inaad gaadho. Sida loo aamino in riyooyinkaagu suurtagal yihiin. Su'aasha u qalanta $1 milyan waxay tahay siduu qofku u aamini karo riyooyinkiisa. Waxaa jira 2 tallaabo oo haddaad samayso aad si toos ah u aamin doonto in riyooyinkaagu suurtagal yihiin. Waxayna yihiin: qodobka koowaad, hor istaag muraayad aad iska arki karto. Intaa kadibna dheh erayo aad ku cadaynaysa in riyooyinkaagu suurtagal yihiin oo aad gaadhi karto, sida siday doontaba ha u adkaatee, siday doontana ha u qadhaadhaatee, waan gaadhayaa, waxaan rabaa, ama siday doontaba ha maalin kasta sameysaa. Waxaad u cajiiba sidaad kalsoonida naftaada u kordhin doonto.
markaad naftaada ka waji ugu hadasho ee aad si qasab ah ugu sheegto waxaad rabto inaad gaadho noloshaada wax kastoo riyadaadu tahayba istaag oo isku eeg muraayad horteeda oo qir inaad gaadhiso waxaad rabto waxaad doontoba aad wajahdid qodobka labaad maskaxdu si ay isu rumaysato inaad gaadhi karto yoolkaaga waa inaad samayso ficil tusaale fudud haddii aad rabto inaad noqoto heesaa caan ah qaad tallaabooyinka dhabta ah si aad ula kulanto inaad tahay geesi oo ku jira fanka oo aad fahanto qaabka ay wax u sameeyaan haddii aad maalin kasta saacado u hurto riyadaada isla markaana aad samayso shaqo kasta oo ku caawinaysa inaad gaadho riyadaada maskaxdaada waxay bilaabi doontaa inay si dee u rumaysato rajadaada ama waxaad riyaysanayso iminka haddii aad hesho dad ku taageera oo kugu dhiirigeliya inaad caan noqonaysid ama aad hore u socotid isla markaana kuu sheegay inaad gaadhi karto aaminsanaanta aad aaminsan tahay inaad gaadhi karto yoolkaaga wuu sii xoogaysanaya doonaa saacad walba oo aad kulmiso gaadhista hadafkaaga maalin walba oo aad ka shaqayso gaadhida riyadaadu markastoo aad ku tiraahdo naftaada inaad gaadhi karto riyooyinkaaga mar walba oo aad noqoto hadallo kuu sheegaya inaad gaadhi karto yoolkaaga waxay sii xoojinayaan inaad aaminto inaad gaadhi karto riyooyinkaaga marka si aad u rumaysato riyooyinkaaga ma jiro wax awood u yeelan doona inuu kuu joojiyo daji hadafiyo maadaama soo ogaatay ujeedada aad nolosha ka leedahay waxaad dab ahaan u rabtaa nolosha isla markaana aad aaminsan tahay inay suurtagal tahay inaad gaadhaa waxaa la gaadhay waqtigaad ogaan lahayd sida saxda ah ee dejiya hadafyada gaadhi lahayd is leedahay muhiimadda ay leedahay inaad hadafyada dejisataa inaad wax walba hadaf u yeeshaa waxa ugu xun ee kugu dhici karaa dad qaar ayaa ku dhagaroobaa naftooda oo isdila sababtuna waxay keentay ma garanay wax hadaf ay ka leeyihiin nolosha muhiimadda ay leedahay in hadafkii la dejistaa kooxdada oo cilmi baaris lagu sameeyay ayaa waxa la ogaaday in 3% dadka kamid ah ay qorshe u yeeleen mustaqbalkooda iyo noloshooda halka 97% aanay wax mustaqbal iyo hadaf aan lahayn tusaale ahaan haddii qof kaliya oo ku fikiray inuu noqdo hogaamiyaha gudida waaxda oo ku shaqeeyo xagga kuwa kalena aanay waxba noqon qofkaas wuxuu maamuli doonaa noloshooda sanado kadib haddii qofkaas maareeyo inuu noqdo hogaamiyaha kooxda wuxuu u dejin doonaa dhammaan kooxda jadwalka shaqadooda وانا saacadaha ay ka shaqeynayso in tirada maalmaha ay shaqeynayso qofkaas iminka wuxuu kantaroolayaa qayb ka weyn oo kamid ah noloshooda tan waxa la mid ah meel kasto oo booskaagu joogo waxaad kantaroolay qayb ka mid ah noloshaada maamulaha meeshaad ka shaqeysaa wuxuu qayb weyn oo kamid ah noloshaada madaxweynaha dalka joogta wuxuu saameyn ku leeyahay wax kasto oo noloshaada rabto inaad hadafyo dejistaa waxay sababtaa farxad aan kala go lahayn dadka aan wax hadafyo lahayn waxay badanaa dareemaan in noloshoodu tahay mid bilaa macni ah sababtuna waxay tahay dadkaas ma jirsan hadafyo ujeedo dagaalama nolosha cilmi baaris la sameeyay ayaa waxa lagu ogaaday in dad kale hadafyo isla markaana u dagaalama hadafyadooda